ururka Race Project oo u adeega dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London iyo nawaaxigeeda ayaa xaflad aad loo soo agaasimay waxa ay ku qabsadeen waqooyiga magaalada London. ururkaas oo loo aasaasay sidii la isku keeni lahaa dhalinyarada shaqeysa iyo dhalinyarada hadda jaamacadaha ka baxaysa ee shaqo raadska. kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay shaqaale ka shaqeeya hay'adaha iyo wasaaradaha waddankan UK iyo dhalinta jaamacadaha hadda ka baxaya ee shaqo raadska halka ay isku weydaarsadeen aqoon isweydaarsi iyo isbarasho. sidoo kale kulankaasi waxa uu daaranaa sidii dhiirigelin loogu sameyn lahaa dhalinyarada hadda ku jirta waxbarashada. kulanka iyo sidoo dhacayna waa kan magacayga waxaa la yidhaha Cawaale Maxamed Mushaax waxaan ahay agaasimaha guud ee ururka Rise Projects oo u adeega Soomaalida ku dhaqan London. ururkan waxaan aasaasnay 2016kii waxaana loo aasaasay in Soomaalida lagu caawiyo lagu wacyigeliyo iyo dhalinyarta in lagu dhiirigeliyo. maanta waxaanu qabanqaabinay xalfadii sanadlayga ahayd Rise Your Net Worth Careers Event waxaana lagu talagalay dhalinyarta Soomaalida iyo dhalinyarta ajnabigaba in la wacyigeliyo oo la isku keenay iyaga dad badan oo professionals oo wacyigelin kara oo dhiirigelin kara. runtii waa xalfad muhiim ah waxaanu rajaynaynaa insha Allah in dadku ka faa'iideystaan. dhalinyarta waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay fursado shaqo helaan. waxaanu isugu yeernay meeshan ilaa 60 professionals oo ka kala yimid industries kala duwan haday tahay IT haday tahay accounting haday tahay marketing iyo ganacsi iyo maxaan ku raahdaa sharciba. marka waxa dhalinyartii professionals kala isku keenaya waxaana la isku keenay inay kala faa'iideystaan oo ay kala weydaarsiistaan information. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waxa weeyaan Axmed Cabdilaahi Maxamed Axmed Balaleex ku magac dheer. maanta waxaan isugu nimi halkan xalfad weyn oo loogu talagalay dhalinyarada khibradda leh inay dhalinyarada khibradda doonaysa ay isku caawiyaan sidii ay dhalinyaradaasi horumar uga gaari lahaayeen xaggii shaqada. waa fursad u furan dhalinyarada Haringey inay ku caawiyaan dhalinyarada kale ee Haringey degan ee iyagu aan shaqada ay ku adkaatay shaqalow sidii looga soo baxay COVID-19ka waxay adkaatay shaqooyinkii sidii ay dhalinyaradu ku heli lahayd. guud ahaanba Soomaalida badanaa shaqadu way ku adag tahay. marka intii shaqooyinka haysay ee meelaha muhiimka ah ka joogtay ayaanu rabnaa inay kuwa hadda jaamacadaha ka soo baxaya isku yimaadaan wada sheekaystaan wax isweydaarsadaan aragtiyo oo ay la caawiyaan siday shaqayaguna u heli lahaayeen. muwaadiga arkay maanta waxaan u bedelay xaafad nabadeed waxqabad iyo dhalinyaro is caawinaysa. dhalinyarada marka fursad la siiyo waxa ka baxay. maanta waxaan imaaday meeshan Soomaaliya meeshan professional ka ah professional balan baa isku yimaaday kuwii jaamacadii ka baxay aad baan faraxsanahay inaan advice iyo oo si fiican u waaniyo inaan meelaha dariiqa fiican toosan inay qabtaan insha Allah. aniga lawyer baan ahay si fiican baan aad baan faraxsanahay inaan waxaan u sameeyo insha Allah khayr. يمكن دليرته وحنا شيء دريقة wanaagsan inay toos u qabtaan oo ina xumaanta iyo balaa iska ilaaliyaan oo inay tacliintoodii iyo professional career-koodii inay ku dadaalaan insha Allah. Cabdiraxmaan Shaqale, Home Cable TV, London.